السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انتين كسو هذا جنال كنا وحنو سعود عشرة هاي جيميلك iyo waxyaabaha la xiriira casharka hore waxaan ku soo baranay sida loo diro email ama sida loo diro gmail ayaan soo baranay. maanta waxaan isla eegi doonaa mowduuca saddexaad ee ah sideen ku ogaan karaa emailka la ii soo diray, sideen ku aqoonsan karaa emailka la ii soo diray, sideen uu eg yahay emailka la ii soo diray. soo furo browserkaaga. marka aad browserka soo furto kadib waxaad sameysaa kor waxaa ku qortaa gmail ku qor enter dheh. markuu sidan kugu soo baxo waxaad arki doontaa ugu horeyn waxyaabihii lagu soo diray. waxaan ku ogaan kartaa in email lagu soo diray meeshan kore ay ku qoran tahay inbox. waxaa kugu soo qormi doono nambara ay kugu soo qormi doonaan. hadda anaga waxaa noogu qoran hal number oo kaliya ayaa noogu qoran. macnaha waxaa waa halkaas number waxaa lagu soo diray hal gmail ayaa lagu soo diray ay ka dhigan tahay. laakiin haddii ka badan lagu soo diro waxaa arki doontaa lambaro fara badan. sidoo kale waxaa ku ogaan kartaa in email lagu soo diray. halkan ayaad fiirinaysaa, primary-gan ayaad fiirinaysaa. qaybta u koreyso waxaa waa emailada lagu soo diray waaye. hadda kan iyo kan isma lahan, iskuma eko. kan email hore oo la soo diray waaye waan akhriyay. emailkan laakiin weli ma aanan furin sababtoo ah waa boldy. soo markiis boldy kan boldy ma kan fartiis saaid ay tiq u tahay macnaha fartiqa waay sama boldy kan bibiyo waa fartiis saarkiisid boldy maahan. marka kan farta boldyga leh waa email cusub oo la soo diray aanan weli akhrin waay. kan waa email hore oo aan akhriyay oo aan furay. marka hadda bal kana fiirinaynaa waa fureynaa klik markaasina sida arkayso waxaa la soo diray salaan. waxay naga soo gaartay in la yiraahdo sahal daahir. marka qaabkan ayaa loo furaa emailka kadib waa la akhristaa. marka akhrisato kadib muhiimadu waxaa waaye inaad ogaatid emailka ku soo dhacay. hadda u fiirso marka dib u laabanayna. marka dib u laabano halkan number hadda kama muuqdo sababtoo ah already emailka waa furnay. hadday soo markin inta waxay boldy ay ahayd meeshan boldy ay ahayd far madow tiq ah ayay ahayd. hadda laakiin ma aha sababta maxaa waaye emailka waa furnay laakiin kii hore yaa isaga hadda isku mid ay noqdeen. haddii mid cusub oo hadda soo gaaro asna wuxuu noqon doonaa boldy kadibna haddaan furno wuxuu noqon doonaa sidan ayuu noqon doonaa. casharkeena maanta intaas ku egyahay. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.